hay'adda DRC ayaa maanta deegaanada gobolka Daadmareer ka bilowday booyado biyo dhaamis oo ay ugu gurmanayso dadka abaaruhu saameeyeen kuwaas oo waqtigan ku daadsan deegaano tiro badan oo ka mid ah gobolka. deeqdan biyo dhaamiska oo ay hay'adda DRC ugu tala gashay inay gaarsiiso ilaa 600 oo qoys ayay sidoo kale kala qayb qaadanaysay shirkadda kireynta baabuurta ee Kaafi oo iyadu ka taageeraysay xagga gaadiidka. waxaana ugu horeyntii deeqdan biyaha faahfaahin ka bixiyay Axmed Saciid Xasan oo ku hadlayay afka hay'adda DRC. aniga ku hadlaya magaca hay'adda DRC waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa guddida maamulka heer gobol dadweynaha sida fiican inoo soo ay hawsha noola wadeen waayo maanta wada ka qeybtay qaadnu kalinahay. marka labaad waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego waxaan halkan imika marinaynaa laba boodood oo ka mid ah biyo loogu talagalay 600 oo qoys oo qofkiiba maalintii uu leeyahay qoyskiiba maalintii leeyahay 45 litir biyo dhigma. waxaan runtii doonaynaa dadku inay biyaha si fiican ay inta maadaama abaartu aad u daran tahay ay uga faa'iideystaan si nafaha loogu badbaadiyo. waxa kale oo aanu doonaynaa inaan halkan ka cadayno in si biyuhu aanu u hubino inay dadka wada gaadheen ay u wada shaqayn doonaan guddoomiyaha oo aanu u qaybinayno dadka kaadhadh ama voucherskan biyaha lagu qaadanayo si qoys waliba uu biyaha u helo oo uu marka kaarka laga ururiyo u qaato biyihiisa u qaato intuu kaarka keeno. isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Daadmareer Maxamed Colaad Ibrahim iyo ku-xigeenka duqa degmada Oodweyne Maxamed Cumar Cilmi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hay'adda DRC iyo shirkadda Kaafi ku amaanay dadaalka loogu gurmanayo dadka abaaraysan ee ay ka wadaan deegaanada gobolka Daadmareer. hay'adda DRC runtii mahad ballaaran baan anigu afka wasaaradda khayraadka biyaha ku hadlaya ee gobolka Daadmareer aad iyo aad baan runtii ugu soo dhaweynayaa deegaankan iyadoo runtii waqti loo baahnaa oo ku haboon in dadka biyo dhaan loo sameeyay ku soo beegtay 600 oo qoys ama household bay runtii gaarsiinaysaa biyaha iyo sanitation kit ay iyagana u raacin doontaa hadii Ilaahay ka dhigo sida qorshu yahay. waxa kale runtii aan iyana u mahad celinayaa hay'adda ima partnerka la ah KTL oo iyana runtii si wacan oo mas'uuliyad ku jirta u qaybinaysa biyaha. runtii anagu ka wasaarad ahaan biyaha waxaan ku talagalaynaa mar walba inaan ka tijaabino biyaha loo geeynayo dadka gaaraya maadaama dadku iska nugul yihiin oo jireeysan yihiin in biyo macaan oo aan waxba ku noqonin oo caafimaadkoodu fiican yahay inaan mudeyno ayaan ku jeegaraynay way ka soo baxeen runtii hay'adda DRC mas'uuliyadda oo xilba iska saareen. waxaan maanta barka soo gaaray biyo ay bixisay hay'adda DRC oo 600 oo qoys ah 600 oo qoys oo ka kooban gobolka Oodweyne tuulooyin ka mid ah. tuulada maanta aan joogno waa tuulada Xaaxi waxa jooga halkan xarunta aan joogno waa xarunta iskuulka waxa biyaha soo bixiyay hay'adda DRC aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. inta abaarahan soconayeen wax kale biyo naga soo gaaray waxa jirta hay'adda World Vision gobolka xoog buu ballaaran yahay 8 magaalo ku kooban yahay aad u biyo iyo baad iyo wax walba ugu baahan yahay. waxa biyaha suura galiyay iyaguna soo gaarsiiyay joogan partnerka la Kaafi aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanada la gaarsiiyay biyahaasi ayaa ka mahad celiyay isla markaana tilmaamay inay waqtigan u baahnaayeen. waxaan imka dib taaganahay booyadihii ay keeneen hay'adda DRC taasoo qayb ka ah 600 oo qoys oo ka mid ah gobolkan degmada Oodweyne oo ay waraabinayeen. waa booyadii labadii booyad ee sanaad ee yimaada ilaa iyo hadda marka hadda biyo kulba halka ugu daran baan ku baqtiinay haddana Xaaxi maamulkeedii hay'adda la DRC bariga waa hay'adda lagu wax qabadka badan leh waxa hay'adii ugu horeysay ee koonta biyo intiimka ay abaartu dhacaysay waxaan leenahay anagu idinleeyahay aad baan u mahadsantiin hay'adda jisayda alxamdulillah rabbil caalamiin hay'adda wax qabadka waxaan hay'adda kale ka qayb saabadka lagu gumariyo hay'adda ku maasantay sayma kanaadka gudoomiye sheegana hay'adda ugu wax qabadka badan ka mid ahayd. waxaan DRC dalna hay'adda DRC hay'ad wanaagsan baa Xaaxina aad uga soo shaqeysay hore sida jawaabaha kale u laban ama biyaha ama nadaafadaha ama xanuunada jira tadeecooyin baa jira waxba jira meel walba. Muuse Salebaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.